وقويس تيرو كل مقالة برعو وحيلا دالا دعيان ظروفها نولوليد ايكو حيران وحانا الراعة ظروفها نادق حانوك الدمير كواسيبين لبا كميدا عرورتا هو فاطمة عبد الله محمود قوتالي حانوكاس او صبابي مid kamida wiilasheeda inuu iska soo tuuro goob halis ah halkaasna uu ka soo gaaro dhaawacyo halis ah telefishinka Hoonkayba loo booqday xaaladda qoyskan ayaa ugu horeyn waxa noo warantay hooyo Faadimo Cabdullaahi Maxamuud iyo wiilay dhashay oo kamida ciidamada difaaca qaranka Soomaaliland waxayna ka codsadeen ummadda muslimiinta ah ee jecel samaha iyo khayr inay soo taraan wixii sadaqa ay awoodaan taas bedelkeedana ay u soo ducayn doonaan waxaanu nahay hooyo reer wada silen oo wada itaal xun oo wada jajaban marka ilaahay dad wada xanuunsanayaanu nahay qaar baa maskaxda ah marka waxaanu codsanaynaa walaalaha islaamka ah wax ilaahay mooyee nagu toosan dee walaalaha iyaga muslimka ah ayaanu imika dee codsanaynaa marka waxaa na sawiray maalin dhaweyto hablo gurigay noogu yimaadeen dabeedna markii ay na sawireen markii ay sawirkii naga dhammaysteen lambarkii guriga ayaanay qoran lambarka yagii koodii bay gashadeen lambarkoodii ayay ku qorteen kaayagii mayno lambarba nabay weydiin dabeedna waaba nagu soo noqon waaye Hoonkayba qoladaasaa ayaa noo timi oo dib noo sawirtay oo naloo sheegay marka dee walaalaha iyo waxaanu ka doonaynaa inay nasoo caawiyaan anaguna duco iyo baanu dee u haynaa duco dadka wada mahadinka ah ee guriga ku jiifa aan ilaahay mooyee meel kale u cuskanayn marka walaalaha iyo waxaanu doonaynaa jecel ahay inay na soo caawiyaan lambarka iyagu waxa weeye 4878653 magacana anigu islaantii dee u weynayd caruurta dhashay baan ahayo waxa weeye Faadimo Cabdillaahi Maxamuud Guutaale Faadimo Cabdillaahi Maxamuud Guutaale ummadda islaamka dibadii gudub waxaan leeyahay dadka waa arkaysan dhaqaatiirtii iyo wax weeyaan dawooyinka qaadanayaan iyo noloshoodu siday tahay waa arkaysan waa dad wada xanuunsanaya wada mahadina ummadda islaamka bay marti u yihiin dibadii gudaba soo dareenka ma waxa inta raacda maalin dhaweyto qola sawirtay sawirkii way ka qaadeen lambareediina ma gelin lambareeyagu way leeyihiin qoodii sawir qaadayaasha ah ayay deegashadeen waa laaliyaha ku soo celiyeen ma jirto wixii dadka wax soo taray sawirka hore wax ku diray waxaan leeyahay lambarka islaantu idin yeedhisay 4878653 ayay dadka xanuunsanaya leeyihiin cidii lambarada kale wax ugu dirtay annaga ka baadi doonayna loo soo sheega wixii ay u dirteen lambarka nagala soo hadla kaayaga cidii sawirka hore lacag u dirtay annagu maanaan rago dadka soo bay gaadhin waxaan leeyahay dadkii sawirka hore dadkan soo tabarucay ee wax ku soo taray soo sadaqadaystay wixii ay soo sadaqadaysteen lambarka kale ku dhacay $100 baa ka soo gaadhay dadkan anigu askari baan ahay ka yimid jiidii la saanood iyo ma garanaysaa goojacde marka wax dhaqdhaqaaqaya anigaaba imika ana jaaris banayo askari baan ahay wax allaaliyo wax adduunyada u hayaana ma jirto marka dibadii gudub islaamka waxaan leeyahay waliba ummadda Soomaaliyeed waa dad walaalihiina
كون ومدى الصومالية دي ليك بيسقودة يلا وبوستي آخره قفل بوح بحص ضابا كوري الدنيا نوع كان راعية وحوي وحياد بحصتي عمل كاك ومدى الإسلام كوحان لي دوح صوت ترى دواء ما عرفت ولكن وابدل حبط صباحية حبط هبين كذي أنا حبط وصدن بيت يصدن ما يفهم إن شاء الله أنا قال سيدي أكره يمكن ما أنا يمكن أوجي نأكله سلا سكره intaanu ku jirnay soo gudbinta xaaladda qoyskan ayaanu waxaanu la kulannay xubno ka socday wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer gaar ahaan cusbitaalka Maandhaye oo qaabilsan daryeelka dadka dhimirka la waxayna noo sheegeen inta ogaalkooda ay kala socdaan xaaladda qoyskan magacaygu waa Saar Xasan waxaan ka soconaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer waxaan nahay shaqaalihii Maandhaye qolada outreach-ka ee wareegta xaafadaha ayaanu nahay waxaan ka warbixinayaa xaafadan maxay tahay aanu hor taaganahay ay noogu yimaadeen namadani waxaanu u nimi muddo 9 bilood aan ku qiyaasayo dadkan oo ka kooban 3 qof oo xanuunsanaya laba wiil iyo gabadh waxay ahayn dad chained ah oo silsiladaysan waxay ahayn dad aad u darla dad aan dawo la siin dad maxay tahay xaaladooda nololood ee kalena aad u liidato waxaanu sameynay inaanu dawadii bil kasta ugu keeno guriga iyagoo noogeyn ayaanu albaabka soo istaagnaa maxay tahay markaanu garanayno inay dawadii ka dhamaatay bishii aanu siinay maasha Allah waxaanu ku guuleysanay inaanu chain free ka dhigno oo maxay tahay ay noqdeen niman iskood maxay tahay isu maamula oo maxay tahay suuriga gala iminka waxay gaareen heer ay qabtaan suuqa hooyadoodu way caawiyaan laakiin waxa hareeyay duruufo kale oo nololeed yacni de waa dad isku wada cad islaan cad ah ayaa haysata maxay haytay oo itaalba aan lahayn inantu way xanuunsanaysaa iyadu waa dadka maxay haytay xanuunka epileptiga la nool maxay haytay dan ladnaatay oo dawadii waxbay u tartay waatan u shaqeynaysa waynu arki doonaa maxay tahay wuxuu karinaysaa anagu xaqaygii waanu guuleysanay insha Allah allana wuu nala qabtay waxaan u sheegayaa dadweynaha Togdheer iyo muxsiniinta wax sadaqadaysta inay dadkan soo caawiyaan oo ay maxay tahay ifka maxay tahay wax la isugu yahay aakhira wax la ismaaha in la caawiyo dadkan maxay tahay inaan ka soo askariya oo jiida ka yimi ayaa marba ka soo war doona islaantu waa cad 3 qof ay kalena wax xanuunsanayaan maadaama aanu ku guuleysanay xaqii dawadaanu chain free garaynay oo aanu dawadii la dul taaganahay intee xaqii kale idinkuna waa inaad bulshada ka soo caawisaan Abdi Waahid Beel Daaje Telefishinka Home Cable